soo noq wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtiin si walba maqalkii idin soo gaarayo soo dhawaada waxaan rabaa inaan warbixintan yar kuugu soo gudbiyo finalka koobka UEFA Conference League la ciyaari doona caawa waxaa ballansan kooxaha Real Betis iyo kooxda Chelsea si kala daa u dhigno waxaa ballansan macallin iyo ardaygiisa soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad markaad kuugu horeysaan soo boqoto page-ka waxaan ka codsanaynaa inaad follow dhaadid laagtaada u baahanaa sii share garay oo saaxiibada aan u baahanaa saaxiibo qaaliya sida adigoo kale soo dhawaada saaxiibayaal waayahay haddii aan warbixintayda yar ku bilaabo waddanka Poland iyo caasimadiisa labaad ee Warsaw waxaa ku ballansan kooxaha Real Betis iyo kooxda Chelsea macallin Enzo Maresca wuxuu ka dhawaajiyay oo shirki jiraad ku sheegay goolahaye Philip Jurgensen inuu ku soo bilaabo doono goolka waa xaqiiq oo Robert Sanchez ma ciyaari doono kulankan dhinaca kale kooxda Real Betis waxaa hogaaminayo macallinkii hore ee kooxda Man City iyo West Ham Manuel Pellegrini si kale haddii loo dhigane macallinka Enzo Maresca wuxuu ka soo hoos shaqeeyey markuu West Ham macallin u ahaa Pellegrini Enzo Maresca wuxuu la shaqeynayay macallinkan kooxda Real Betis waxaan dhihi karnaa waxaa isku bixi doona maalinta berita macallin iyo ardaygiisa haddii aanaa taageerada Chelsea weli xilli ciyaareedkani ma dhammaan oo koobkan waxaan u baahanaa inaan madax degsi ku dhigano maadaama aan u soo baxnay Champions League maxaa sababta saas u dhahay waxaa waaye kooxda Chelsea koobkan UEFA Conference League waxay ka dhigaan wacdaro aad iyo aad weyn oo waxay ka dhaliyeen 38 gool oo kooxda la celin lahayaa waaye dhanka kale kooxda Real Betis waa koox aad iyo aad isku haysata waxaan u ciyaaro laacibkii hore Real Madrid Isco iyo waxay ka soo qaateen oo amaah ugu ciyaarayo Anthony laacibkii Man United oo wacdaro aad iyo aad ka dhigayo balse adiga qaybta hoose nala wadaag kulankaasi muxuu ku soo dhamaan karaa koobkane yaa ku guuleysan doono haddii aniga saadaaliyo kooxda Chelsea ayaa ku guuleysan doonto weliba 2 gool iyo 1 ayay koob ku qaadi doonaan adiguna qaybta hoose nala wadaag inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo